بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaasha ku xiran aqil official maanta ku soo dhawaada qiso aynu kaga hadlayno bilaal xagu aaday geeridiina maxamed kadib halkan ayaad kaga boga doontaan hadduu rabo weerar raali ka noqdo ka hor intaan barnaamijka gudagalin subscribe noo saara si ay dhiirigelin inagu noqoto bilaal bin rabaax wuxuu ahaa saxaabi muslim ah oo qiimo badan siiba xilligii nabi maxamed salawaatullaahi calayhi wasalaam oo uu ahaa mu'adinkii muslimiinta. bilaal islaamka ka hor wuxuu ahaa addoon uu leeyahay mid ka mid ah mudanayaashii reer quraysh, balse markii dambe waa la xoreeyey oo abubakar sidiiq ayaa furtay. bilaal oo ahaa saxaabi aanan halkan taariikhdiisa iyo qiimihiisa midna aan lagu soo koobi karin, xaggee ayuu aaday geeridii suubana maxamed nabadgelyo naxariisa korkiisa ahaatee kadib. bilaal geeridii nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaam kadib waxa uu tegay abubakar sidiiq, allah ilaahay ha ka raali noqdee, oo isna ahaa saxaabi qiimo badan islaamka dhexdiisa. waxauna ku yidhi, amiirkii rasuulkow, waxaan maqlay nebiga oo leh shaqada uu addoonka ilaahay qabto waxaa ugu fiican jihaadka alle dartiisa ah. abubakar radiallaahu canhu wuxuu ku yidhi, maxaad markaa rabtaa bilaalow? bilaal ayaa ku yidhi, waxaan rabaa inaan u bambaxo ilaahay dartii ilaa aan ka dhinto. abubakar ayaa wuxuu ku yidhi, oo yaa noo adimaya? bilaal oo indhihiisa ilmo ka buuxda ayaa ku yidhi, anigu cidna uma adimayo rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalaam kadib. abubakar ayaa wuxuu ku yidhi, nala joog oo noo adin. bilaal ayaa wuxuu ku dhahay, haddii aad i xoraysay adigu ima lahaanaysid, waxaan ahaanayaa sidaan doono. haddii aad ilaahay dartii ii xoraysay idaa, isagaan addoon u ahayee. abubakar ayaa wuxuu ku yidhi, xaqiiqdii alle dartii ayaan kuu xoreeyey. intaa kadib bilaal waxa uu booqday dhulka shaam ee suuriya, halkaas uu ku diyaar ahaa islamarkaana mujaahid uu ku ahaa. wuxuuna naftiisa ku lahaa, maan ahaanin ama yaan noqonin mid jooga madiino dhimashadii rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalaam kadib. haddii uu rabo inuu adimo marka uu soo gaadho, wuxuu qirayey inuu maxamed yahay rasuulkii alleh, waana uu murugoonayey oo uu oonayey bilaal shaam ayuu iska joogay oo waxa uu la jiray mujaahidiinta sannado badan. bilaal waxa uu riyo ku arkay nabi maxamed salawaatullaahi calayhi wasalaam isagoo ku leh, waa maxay jawfadu bilaalow, miyaanan ahayn inaadna soo booqato? intaa kadib bilaal waxa uu noqday mid murugaysan oo waxa uu u soo boqoolay dhinaca iyo magaalada madiina. waxa uu soo booqday qabrigii nabi maxamed salawaatullaahi calayhi wasalaam, waana uu ku dul ooyey. sidoo kale waxa uu dul tegay xabaalihii xasan iyo xuseen. bilaal sidaa markuu yeelay kadib waxa uu fuulay masaajidkii nebiga salawaatullaahi calayhi wasalaam korkiisa, waxaana uu ku dhawaaqay allaa weyn. intaasi markii ay ka soo yeedhay magaaladii madiina way ruxantay, haddana way sii ruxantay markii uu ku dhawaaqay, waxaan qirayaa inuu nebi maxamed yahay rasuulkii alleh. dumarkii ayaa ka soo baxay guryahooda, mana ku naqan maalinta. madiine oo dhan waxay noqotay mid laga ooyaya oo idil. amiirkii muslimiinta cumar bin khadaab radiallaahu canhu markuu booqday shaam suuriya, dadkii way baryeen si uu bilaal u yidhaahdo noo adin salaad qura. xilligii salaada markay gaadhay, bilaal ayuu cumar u yeeray si uu salaada ugu adimo. bilaal ma uu diidin. cumar radiallaahu canhu waa uu aadamay. saxaabadii garanayay nabi maxamed salawaatullaahi calayhi salaatu wasalaam way ooyin aan weligood ooyin. cumar ayaana ahaa kan ugu daran. geeridii bilaal markii ay soo dhoweyd, waxaa oyday xaaskiisa oo wuxuu ku yidhi, ha ooyin, beri waxaynu la kulmaynaa kuwii uu maxamed salawaatullaahi calayhi wasalaam jeclaa iyo asxaabtiisa. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qisadeenna maanta. intan mideeda xiga aynu ku kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo, nooli kulanti dambe oo xiiso leh.